wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga dowlad goboleedka galmudug nuur xasan xuseen urganay oo shir jaraad ku qabtay magaalada Gaalkacyo ayaa soo dhaweeyay gudoomiyaha cusub ee culimada al-sunna wal jamaa ee doorteen dhawaan wuxuu sidoo kale wasiirku eedeyn dusha uga tuuray wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya kuwaas oo tilmaamay inay ku dhaqaaqday falal cadaalad darro ah marka koowaad marka waxaan u hambalyeynaya gudoomiyaha al-sunna wal jamaa oo taariikh dheer ku leh xagga diinta islaamka al-sunna wal jamaa waxa weeye dad diinta islaamka ka ah xambaarsan waa dad xushmad mudan meesha ay ka xoogaadaan oo ay iyagu jiraan ama joogaanna xasilooni ayaa ka jirta hambalyo wacan galmudug anoo ka hadlaya afkeeda wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga gudoomiyaha saasaan u hambalyeynaya waxaan u soo jeedinayaa dhaliil iyo cambaarayn shirka ay ku qabteen muqdisho dowladda Soomaaliya oo aan loo dhamayn oo laga qayb gelin maamul goboleedyadii saxay shirka inay iyagu dowlad noqdaan waxaan asagana cambaaraynayaa wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya oo daadiyay arrintii loo xilsaaray u adeegsaday dana gaar ah oo u gaar ah fulinayna siyaasadda qarsoon oo aan la garan karin adduunku aysan garan karin dhanka kale gudoomiyaha baarlamaanka galmudug Cabdiraxmaan Ibraahim ayaa eedeyn kulul u jeediyay dowladda Soomaaliya gaar ahaan shirkii dhawaan ku soo gabagaboobay magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya isagoo ku tilmaamay shirkaasi mid aan looga tashanayn ayaha Soomaaliya shirkaasi wuxuu yahay shir xaraan anaga xagee waxa kale oo jira shir la leeyahay culimada Soomaaliya ayaa hadda xamar lagu qabanaya oo dad la leeyahay tiro badan oo soo arursanay وعلماء كي اللي يقيني السنة والجماعة والصومالية لو يقيني عن كتيرين دات كانوا بنانا لقى كيني أما سي وعي أنا قرانيني لقوعي وحن كلاو عن هالكاس كل ليلة هي سيدو وسير كريمها جودها هي أمنية قلمدو استيد وشيء وسير كريمها جودها هي أمنية لو ما دورن لو ما نحل سارين شخصي يحكتو يقوس منه Soomaaliya ayaa dooratay loona xirsaar xilka wahayo inuu cadaalad noqdo iyo sinaan wax ku sameeyo iyo maaragtay u dhaxeeyo umada shirkan jaraa'id sidii wada jirka ay maanta u qabteen wasiirka arrimaha gudaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka ayaa ku soo beegmaya xilli lagu wado shirweyne looga tashanayo ayaha Soomaaliya ka dhaco magaalada Brussels ee dalka Belgiumka kaasi oo lagu magac daray New Deal ama hiigsiga cusub Ali Maxamed Nuur Hon Cable TV Gaalkacyo